ay waxa ka dhaqi kara oo ugu horeeyo fiidiyowga lagu baaba'ay musalsalka iyo balaayada ficilada shaydaan ee dhammaan baabi'inaya wixii qalbigooda lagu soo shubay waa inaynu ka ilaalinaa waalidiintii haddaanna waa inaan carruurta ilaahay uga baqnaa maxaa yeelay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu waalxijaara wardadow naftiinna iyo ahalkiinna ka dhowrow leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dadka iimaanka laga helay kuwa aan laga helin talada kuma jiraan kuwaasi dadka iimaanka laga helay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay naftiinna iyo ahalkiinna naar ka dhowra naartaasoo waxa lagu shidaalka u ah ay yihiin dhagxaanta iyo dadka waa inaan taa carruurtayna iyo naftayna aan kala digtoonaanno waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala daacaadkiisa laazimno carruurta waa inaynu ka ilaaninno markaan macallimka ay ka yimaadiin inaan mucallim kale u samayno ka dhaqay wixii macallimiintu ku soo shubeen waa inaan ka ilaalinaa waa inaan arrinkaa ilaahay uga baqnaa in badan subxaanahu wa tacaala intaas kelimadaydan ku soo gebangabaynayaa waxaa kale xafladdan iyo xafladaha dhammoo la mid ah khayrka runtii waa xaflad lagu magacaabi karo xaflad shukri ayaa lagu magacaabi karaa xafladdaa shukri marka waxay tahay marka aan soo aadayna iyo marka aan joognaba inaynu ilaalinno daacaadka rabbi subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo uu noo nicmeeyo weyn waayo inaan qur'aankiisa kariimka ahaa aan dhammaynay u xafladayno oon weynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamtiisa nicmooyinka ugu waaweynay ka mid tahay mar hadday marka sidaa tahay nicmada ilaahay waa uun labo cidda uu nicmeeyaahu inay nicmadaa ka shukrido iyo nicmadaa inay ku kufrido nicmadaa shukrigeedu waxa uu yahay allah subxaanahu wa tacaala in la xuso oon la iloobin oo looga shukriyo nicamka uu ku waafajiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala in la adeeco oon la caasiyin oo markii uu kuu nicmeeyo nicmadiisa kufri aadan ku qaabilin allah subxaanahu wa tacaala addane waa in la xuso oon la iloobin isaga waana in la adeeco oon la caasiyin waa in lagu shukriyo oon lagu kufriyin kufriga macnihiisu waxa uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhegihii araggii afkii ilaahay uu ku siiyey daacaadka allah inaad u kaashato ay ahaad haddaad u kaashatid macaasi ilaahay ee markaad qur'aanka ku soo dhegaysato aad muusig ku dhegaysato ee markii aad qur'aanka ku soo akhrido aad aflagaada ku akhrido oo markii aad diinta ilaahay soo xambaartay aad wax kale ku dhaqdo ood munkaraad la timaado runtii nicmadii ma aadan ka shukrine waa aad ku kufriday marka dhaguhu waa nicmo shukrigeedu waa in khayrka lagu dhegaysto afku waa nicmo waa in khayrka lagu hadlo ma aragguna waa nicmo waa in wax ilaahay raalli ka yaha lagu fiiriyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu